kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idinku talagalnay waa barnaamijkeena habeenimo isniin ah talaada ay soo galayso taariikhduna waa 17 bisha 8 2026 qodobo muhiim ah oo soo kordhay intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijka ku soo qaadanaynaa ugu horreyn waxaynu ku bilaabaynaa markab imaaraadka leeyahay oo la sheegay Iiraan inay qabsatay muxuu haleeyay amarkeedu diiday haddaba muxuu samayn doonaa imaaraad lama yaqaano haddaba aan idin tuso warbixintan waxaa goor dhow qoray waa war degdega telefishinka ruushku leeyahay ee la yiraahdo RT haddaba telefishinka RT wuxuu soo xiganayaa wakaaladda wararka Iiraan ee la yiraahdo Faris Iiraan waxay qabsatay markab kuwa shidaalka qaada oo imaaraadku leeyahay waxayna ku qabatay maranbiyoodka Hormuz kadib markii markabkaasi uu khilaafay habka loo gudbayo maranbiyoodka Hormuz ee ay Iiraan soo bandhigtay wakaaladda Faris waxay sheegaysaa in fiidkii caawa oo isniina la qabtay markabkaasi oo ah kuwa shidaalka qaada oo imaaraadku leeyahay isagoo marayay maranbiyoodka Hormuz haddaba sida ay qortay wakaaladda wararka ee Faris markabkan waxaa iska lahayd shirkad laga leeyahay wadanka imaaraadka markabkan ayaa la sheegay inuu ka hor yimid wixii Samayl yiri kadibna lagu qabtay meel ku dhow jasiirad ay Iiraan leedahay oo qasham la yiraahdo halkaas ayaa lagu hayaa Iiraan markabkii dhanay qabatay awalna waa weydeen imaaraadku maraakiib hore 3 laga garaacay haddana waa soo garguurana waa soo socdaa war xagee u socotaa waa maraya meesha maxaad maraysaa macnaha imaaraadku waxa ka dhaadhacsan Hormuzkan qayba ka degantaa waxba ku leedahay marka sidee lagu joojin karaa hadda waxba laguma dhufanaa waaba la qabanaa leer markabku waa la xiraa haddaad awood leedahay wax isku haysid kaale markabkaaga furaa leer haddaad meesha degantahay sheekadu marka waa adag tahay warku waa cusub yahay imaaraadku waxay ka soo saaraan waa arki doonaa kullay hadda warkan wakaaladda wararka ee Faris sheegtay markabka inuu imaaraad leeyahay oo marka Iiraan ay gacanta ku dhigtay ayaa la leeyahay qodobka isaguna halkaas ay kaga gudbaynaa ninkii Trump waxa la sheegayaa wuxuu yiri Oman waa duqeynaya uu ka shakiyay heshiiskii baarmaan Oman iyo Iiraan la isla wada lahaa wuxuu isiri nimankii Iiraaniyiinta Oman way kala wareegeen odagii afku furtay arrintu subarka wargeyska la yiraahdo Al-Quds wuxuu leeyahay Fox News ayuu u sheegay Trump inuu ku hanjabay inuu duqeyn doono Oman haddii ay carqaladayso waxa uu ku tilmaamay Washington qaabka ay u rabto in loo maro maranbiyoodka Hormuz haddaba marka warbixinta way sii socotay waxa la leeyahay Fox News ayaa sheegtay in madaxweyne Donald Trump uu ku hanjabay inuu si aad ah u duqeyn doono wadanka Oman haddii uu hor istaago waxa uu ku tilmaamay howlaha Mareykanka uu ka rabo gacanka Hormuz wariyaha Fox News ninka la yiraahdo Terry Youngson ayaa soo gudbiyay hadalka Trump ee ku saabsan gacanka Hormuz kadib waraysi uu la yeeshay madaxweynaha Mareykanka haddaba wariyahan oo la yiraahdo Youngson ayaa yiri markii Trump la weydiiyay waxa uu samayn lahaa haddii Oman ay farageliso howlaha Mareykanka ee gacanka Hormuz wuxuu ku jawaabay haddii Oman ay naga hor timaado si aad ah ayaan u duqeyn doonaa ayuu yiri marka waa hanjabaad toos ah ayaa hawada la isu marinayaa meeshaan ma la isku dhaxayo waa arkaysaan marka hawshaas iyaduna halkaas maraysa xaalku halkaas uu joogaa marka warkaas soo kordhay dhanka Yemen warar cusub oo sidaas ma jiraan laakiin galabta waxa la sheegay in Xuutiyiinta ay weerar cusub ku qaadeen mar kale meesha la yiraahdo Mukha iyo Ma'arib ayay haddana waxay ku duqeynaan leeyahay gantaalo iyo sawaariiq sida la sugayay wali wax wara oo ka soo baxay dhanka Xuutiga ma jiro gantaalihii maanta la yiri Xuutiyiintu waxay ku garaaceen Babal Mandab ayay ku garaaceen wali wax akhbaar ma jiro dhanka kale Sacuudiga wali wuxuu ku howlan yahay diyaarinta isbahaysi weyn oo xoog leh oo marka
ilaaliyaan marinbiyoodka Hormuz kana hortaga dhibaatada ay halkaa ka wadaan sida Sacuudigu leeyahay kooxaha argagixisada ah ee la yiraahdo jamaacad irhaabiyo yiraahdo kooxaha argagixisada ah ee Xuutiyiintu ka wadaan marka hawshaas iyaduna halkaas maraysa waa tahay qaybta ugu dambaysa barnaamijkeena caawa waxaanu ku soo qaadanaynaa war cusub isagana galabta waxaa la sheegay in la weeraray markab marayay xeebaha Soomaaliya koox burcadbadeeda oo 8 qof ayaa markabka fuusha la leeyahay oo qafaalatay haddaba aan idintuso telefishinka la yiraahdo Sky News ayaa wuxuu qoray warbixin uu leeyahay 8 dagaalyahan oo hubaysan ayaa fuulay oo qabsaday markab kuwa xamuulka ah oo marayay xeebaha Soomaaliya sida la leeyahay haddaba hay'adda hawlgallada dhinaca ganacsiga badda ee Britain ayaa sheegtay maanta Isniina in 8 nin oo hubaysan ay fuuleen markabka kaasoo la sheegay inuu marayay xeebaha Soomaaliya wayna qabsadeen ayaa la leeyahay haddaba ilaa hadda lama sheegin magaca markabka calanka oo markaa ka dulbabanaya markabka noocu ahaa iyo cidda iska lahayd wali wax tafaasiila oo dheeraada lagama soo saarin way maalmahan hadda ka horna waa ogeeday markabkii ay saarnaayeen nimankii masaarida ahaa iyo lacagta fara badan lagu rabay iyo haddana waxaa leeyahay markabkaas la qabtay inkastoo markabka wali aan tafaasiishiisa isagana lahaynin oo calanka uu watay iyo wadanka iska lahaa iyo cidda la socotay wali lama hayo laakiin nimankan waxay leeyihiin markabkaas 8 nin oo hubaysana fuushay waana la watay wuxuuna marayay xeebaha Soomaaliya leeyahay marka waa arki doonaa kulay wixii akhbaarada soo kordha wararkaas ayaa ugu waaweyn caawa barnaamijkii labaad iyo kii koowaad iyaguna aad ay u xiiso badnaayeen dadka jecel barnaamijyada iyaguna warar aad u xiiso badan ay halka ka heli doonaan inta aan mar kale kulmayno meel kastoo aad joogtaan haddii aan la idmo